ballaaran oo isugu yimaadeen dadweynaha ku dhaqan degmada Boocama ee gobolka Sool ayay si buuxda ugu taageereen jiritaanka maamulka Khaatumo iyo weliba xuska sanad guurada labaad ee maamulka Khaatumo oo haatan ay ka soo wareegtay amintii uu jiray muddo 2 sano ah. waxaana dadkii banaanbaxay ee degmada Boocama ee gobolka Sool halkaas kala hadlay Cabdinuur Cilmi Qaache Biindho oo kamid ah 3 nin ee loo magacaabay golaha madaxtooyada ee shirkii Khaatumo 2 sano ka hor ka dhacay degmada Tareex ee gobolka Sool. Cabdinuur Cilmi Qaache Biindho iyo sidoo kale ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur waxa ay dhaliil u soo jeediyeen guddiga sare ee G11 ee maamulka Khaatumo iyo Somaliland iyadoona ay sidoo kale halkaas ka hadleen odayaal wax garad aqoon-yahano haween iyo dhalinyaro kuwaasi oo dhammaantoodba xusay inay si buuxda u taageersan yihiin maamulka Khaatumo dhanka kalena ay xusayaan sanad guurada labaad ee maamulka Khaatumo. guuradii Khaatumo labaad ayaa xafladan loo qabtay waxaa kale oo lagaga hadlayaa xafladan oo weheliya heshiiska ka dhacay Turkiga oo ay ku heshiiyeen Somaliland ama dadka la yiraahdo Soomaalidiidka iyo federaalka labada qodob baa xafladan lagaga hadlayaa hadalkaynu furanaynaa waxa hadalka inoo furaya ugaas Cabdullaahi ugaas ku soo dhaw xafladan iskugu yimi dhammaantood waa salaamaya noocyada kala duwan ee bulshada waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sida uu sheegay daadiyaha shirka waxa weeyaan waxa laga hadlayaa kulanka kan sanad guuradii labaad ee Khaatumo ayaa lagaga hadlayaa dhammaan waxa weeye dadka ku abtirsada ee gobolada Sool iyo Sanaag ee reer Khaatumo meelay joogaan dibad iyo gudaba waa salaamaya. runtii xafladatan ayadoo waqtigeedii uu waqti hore ahaa hawlo jira oo aanu ku kala maqnayn ayay dib ugu dhacday laakiin waxay ahayd inaanu markaa ka daba tagno maadaama hawl aanu ku maqnayn oo waqtigeedii uu dhaafay inaan maanta ka daba tagno ayaanu xafladatan u qaban sidaas ayaanu ugu hambaliyaynaynaa beesha reer Khaatumo meel kastoo ay joogaan dibad iyo gudaba waxa weeye waynu wada ognahay Khaatumo Taleex baa lagu sameeyay iyadoo beeshaas dhammaan ay iskugu yimaadeen wax garadkeedii iyo waayeelkeediiba ay xaflad samayntii Khaatumo ay ka soo qayb galeen waxa weeyaan xafladaas qof kasta oo reer Khaatumo waa waajib meesha uu joogaba inuu ka xuso miyi iyo magaalo iyo dibadba runtii waxa weeyaan hadda waxaanu maqlaynaa oo aanu aragnay oo war aanu malaynaya inayan dhab ahayn matalan waa la cayriyay madaxweynayaashii qaar waxa weeye hadda madaxweyne kamida madaxweynayaasha Khaatumo baa dhinac fadhiya runtii waxa weeyaan sida loo maamulayo wax kuma qanacsanin mana matalan macquul ma sharciyadna ma waxa jiray oo ka horeeyay حسب اللي يراهدو USB بيليه اي ككوبناي ما انت سيدي باي سو قبسنيان كمانا دودي كرو سيلايو waxaan doonayaa USB kuwii xornimada ka dhaliyay waqooyi xusbiga USB buu ahaa beelihii maalinta xornimada dhaliyay xukuwa waxa maantana doonaya isku xirka doonaya aan ramin Soomaaliya la kala googooyo u diyaar garoobay inay sidii ay maalintii hore isugu keeneen maantana inay isugu keenaan weeye beesha Khaatumo la baxday inta markii aan ka soo ninka leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud waxaan marlabaad ku cinayaa hanaga ilaawi hanaga siideyn waxa Khaatumo ay ku yeelato maamulka siyaaya anaga nama matalo intaas oo dhan inaanu ka heli doono waxaan kale u digayaa cidda Khaatumo sheeganaysa oo aan ahayn waxaan uga digayaa Khaatumo inaan baabi'in karin oo xumayn karin oo dadku arkayo yaan uga digayaa cidda aan ahayn oo Khaatumo sheeganaysa hadday dibad jirto iyo hadday guda joogto iyo hadday madax tahay iyo hadday isma tahay iyo hadday caaqiliin tahay iyo hadday jiinayn tahay iyo hadday 15 ka lagu sheegaya tahay
وش عليه وش يجي عليه وش وطاق كدارني يلا كدارني ما دحدي خاتمه وحيو قدق انت ليه ما دحدي خاتمه وحيو قدق انت ليه ديارة دقارة وحيقوني وقررتين لا بدر نعبان إندها نودم من كرين أنا كدبين يدق هذا وحي مغلي ودقاقدايو تاشيغي ديديب كلو تاغي ديسميدي اقون لغو هيرغلي دغخديgeedii ee dheelina hadeer kama boqdiyo duuri soo kacay dhamihii taleexiya halkaan gaalka ugu dhaartay dhabiintaasi maray oo dhirihi eegay berdiintii yaan dhunkaday dhaalkii laga hadiyay berdiintii yaan dhunkaday dhaalkii laga hadiyay dhaqashada kuwiinoo hayiyo yarow geela dhamaadeed magaaliyo haween ficila soo dhoobtay kuwii magaca lagu dhaadan jiray dhoofsanii yimi oo dhalinyariya waayeel tashiga la isu dhaafan dhaafya dhalinyariya waayeel tashiga la isu dhaafan dhaafya dhambalada kuwii qaadi jiray ama sadhandham oo dhakanii cadaawiyo ladiid sooma baasidee dheereeyey nimankii ahaa dhuuni raacyada oo dhabbaan uga ilbaxay nacafyadee see dholaan jiray isku soo wada duuba Cabdinuur Cilmi Qaaji Bindi oo ka tirsanaa gurihii madaxtooyada ee maamulka Khaatumo ayaa khilaaf soo kala dhex galay maamulka Khaatumo kadib markii dhawaan gudiyada sare ee maamulka Khaatumo ay shaaciyeen in xilka laga qaaday Axmed Karaash oo ku biiray maamulka Puntland iyo sidoo kale Cabdinuur Cilmi Qaaji oo isagu sheegay inuu yiri yahay madaxweynaha maamulka Khaatumo aadan Maxamed Karaam Boocame Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ